dagaalka aadka u baanaya ka soconaya gobolada duleedka dhulka ay qabsatay dawladda dalkaasi Ruushka iyadoo weer iyo weerarcelis halkaasi uu ka bilowday kooxda loo yaqaan kuwa gurgura iyo mutadawiciinta wadankooda u hiilanaya sida dawladda dalkaasi Ukraine sheegtay waxay sheegtay in deegaano badan ay ku ballaarisay awoodeeda goorsi horeysay ayaa la sheegay in cirka wadamadaas oo dhan ciyaaryaamo noqday kadib markii uu gaashaanburta NATO ay soo bandhigeen waxay ugu yeereen Air Defender 2023 oo ah waxa loo yaqaan hawlgalka bandhiga diyaaradaha 250 ka gaaraya sidoo kale ay ku jiraan ayaa 10,000 oo askari iyo waxa loogu yeeray maraakiib kala duwan isku birtumashadan ayaa u muuqata mid marmar ka dambaysa xaaladda ka sii daraysa dhanka kale dawladda dalkaasi Russia ayaa sheegtay in aysan dawladda dalkaasi Ukraine abad ka noqon doonin waxay ugu yeedhay hanaanka dhinaca Black Sea ee Grainka loo yaqaan iyadoo sheegtay inay sutida u sii qaban doonto hanaankaas markaana ay ka hortagi doonto madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa sidoo kale waxa uu soo kala dhaxgalay khilaafka u dhaxeeya hogaamada ciidamada kala duwan ee maamul goboleedyada kuwa kale cashuur shaqaystayaasha iyo militariga lagu dhaatay dalka wuxuuna la saftay ciidanka militariga wuxuuna ku amray dhammaan maamul goboleedyada ciidankooda daraawiishta oo kala ah halka wadankeena daraawiishta ay leedahay in lagu wareejiyo kuwaasi waxayna sheegeen in taasi noqon doonto gabi ahaanba mitaasi Jarmalka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in amniga qaranka iyo ammaanka dalalka reer Yurub markii ugu horeysay ay soo foodsaari doonto halis aad u weyn isagoo sheegay waxdada loo yaqaan The National Security Strategy NSS ay ku dhawaaqday in ay dawladda dalka Russia ay noqotay dawlad laf dhuunka ku noqotay tan ayaa timid kadib markii madaxweynihii hore ee Russia ay markaasi uu sheegay in ay dhawaan duqeyd doonaan dalalka reer galbeedka oo hub culus la dhici doonaan madaxweynaha Belarus ayaa arrin kale oo la yaab leh ku dhawaaqay baan idin hayaa oo aad ka fijici doontaan oo ah waa ninkii nuclear-ka la siiyay oo hadda tale ninkii Zelensky ahaa asagoo baqayay soo wacay waa sida Soomaalidu markii qarkood u wada hadasho xitaa madaxweynayaasha qaar baa waalan baan malana saas ayaguna u wada hadlaan marka xasuusta sheekadii سعيد عبد الله الدنيا ولا يسوعي يوليه هنشبيه بر حسوستايو كلا وتيو كلا ويه midaan ka fogeyn marka bal horta aan fiiriyo dalka Jarmalka hogaamiyihiisa Olaf Scholz ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay marka laga hadlayo siyaasadda wadanka Shiinaha sida loo galayo in la isku dheelitiro tan waxay timid iyadoo Taiwan wasiirkeeda arrimaha dibadda maamulka goonigosadka ah uu Yurub u soo ambabaxay shirkadooda qabtayna uu sheegay inuu doonayo in uu ka bariyo wadamada reer Yurub inay taageeraan aqoonsadaan sidoo kale la shaqeeyaan Joseph Wu waxa uu Czech Republic magaalada caasimadda Prague ugu tagay mas'uuliyiinta wuxuuna sheegay inuu la wadaagi doono dhibaatada iyo kacdoonka ka taagan gacanka loo yaqaan Taiwan Street kaasoo sheegay in Shiinuhu ay ururqaysteen markaan loo baahan yahay in laga waabiyo sida Ukraine bash Ruushka looga markaas qabanayo wayna gilgilayaan ay yiri markaan dhibaatada xoog badan u hayaan si kastaba noqotay waxay u muuqataa tani inay tahay arrin kale oo dab ay ku ciyaarayaan sidaas waxa ka digaysa wasaaradda arrimaha dibadda dalka Shiinaha waxay nooga digtay dalalka reer Yurub in aysan dhibaato kale isku soo jiideen ayagoo goorsi horeysay gubay dunida dhinaceeda bariga dhexe bariga yani Yurub iyo u dhaxeeya Asia maaha bariga dhexe Middle East adduunka oo dhan ma iyo qaybo ka mid ah wadamada reer Yurub hadda taqriir qiraarintu tahay madaxweynaha Jarmalka hogaamiyaha Jarmalka wuxuu leeyahay tani waxay u dhigan tahay ayuu yiri dhibaato aad u xoogan oo dhala doonta hadii dhinacyadu ayuu yiri ansiyaadkan wuxuu markay noqoto dhinaca ganacsiga horumarka Shiinaha waa in la shaqeeyaa way caddahay wiil Shiinuhu inuu sii socdo inuu dhaqaalahan kor u sii kobco dunida oo dhan cilaaqaadka uu la leeyahay way wanaagsantahay marka anaga hadaan reer galbeed nahay waa in arrinta isku dheelitirnaa markay noqoto dhinaca ammaanka iyo security-ka waa inaan taa ku xisaabtamaa oo aan qaadnaa talaabooyin aan kula tartamano laakiin maaha ayuu yiri inaan naahno wadi weerarayna iyo wax lamid ah taasoo ku tilmaamay sheekooyin hadur noqon karaya markaan ay beenin karto awoodda sii kobcaysa dalka Shiinaha waxda National Security Strategy warbixin laga soo saaray ayaa ku jirtay taasoo erayada lagu qoray arkaysay in aad looga taxadiray taasoo ka dhigan in dawladda dalkaasi ay Jarmalka ay ka doonayso inay dib uga waabato wax kasta oo keeni karaya handadaado iyo waxyaalo noocaas oo kale waa trabeelka wararka wacala dhinaca dibadda gaan dunida oo dhan qodobo kale oo waaweyn baa inoo soo socda dabashana qiimaha leh bal iyadoo adduunka aad aragtaan inuu saas u qasay marka dambeysana arrimo ay weegiin kuwa sii xumaa kara ama si kala sii noqon karaya ayaa dawladda Mareykanka waxay hadana ku dhawaaqday Ruushka in ay ka hortagayso oo ay la dagaalamayso ay yiraahdeen waxa ay ugu yeereen joogitaan hor leh oo ku soo qaaday bariga dhexe sidaasi waxa lagu sheegay warmurtiyeed ay soo saartay waxda Langley Air Force loo yaqaan kadib markii diyaaradaha F-22 Raptors oo ka soo duuray Langley Air Force Base ka leedahay Middle East-ga ay doonayaan in ay si weyn uga shaqeeyaan waxay sheegeen diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushku ay handadeen inta badan wixii agabha ay u yaalay dawladda Mareykanka aaga loo yaqaan the United States Central Command CENTCOM xaruntooda ku yaala xudeyd duleedka magaalada caasimadda waa dalka Qatar Doha taasoo ay sheegeen in ay saadaradeeda Raptors Langley ka tagay ay yihiin kuwa loogu talagalay kor si qaadaan iyagoo sameeyo doona duulimaadyo ay yiraahdeen roomdo iyo sidoo kale in ay ka hortagaan hadadaad kasta afayeenka ciidamada dalkaasi Mareykanka sidoo kalena ah taliyaha ciidanka CENTCOM General Eric Ekrila ayaa waxa uu ku tilmaamay dawladda dalkaasi in wadayaasheeda duuliyaasheeda diyaaradaha yihiin kuwa gab ahaan xirfad laawayaal
unprofessional yuu ku tilmaamay inay yihiin isagoo sheegay inaysan aqoonin hanaanka qolqolka halista la soo ilaaliyo iyo marka qaarkood inay macangagnimo sameynayaan ayuu yiri wuxuu sheegay inay taasi tahay axmaqnimo ay tahay in laga hortaga oo loo sheego habka hawada loo qolqolo kadibna awood ahaan la dulaalo taasoo ka dhigan ayuu in diyaaradaha dagaalka ee wadankiisa ay sameyn karaan arin aad u weyn ayuu yiri وصهذا الكوريجي بلاروس مدحينيس نكلاد ألكسندر لوكانشو أيه وحاول شيء إن خدك تلفونك وكلاسو هذا فلامدر سلينسكي سجى أو شيء إن وقعد صدي إن أي وضع خدلان أو أي سفجر واجه ماشي كسران تاني أنت أي صوب هذا هو كانوا بيحكي إذا أي صوب عكدنا وعي صوب بندقة ورني وأنا وضع هذا الله أيوه وصهذا الكوريجي أنا وضع هذا الله أيوه كيل سووا راشيا تي في channel كلير هذا راشيا 1 كهدي هو يدي aniga waxaan rabaa inaan run idii sheego markii u horeysay wuxuu soo dirsaday ayuu leeyahay Krelo Bundabdov kaasoo ahaa ayuu qofka contact personka qofka macnaha xilaqaadka isku xidhayay kaasoo uu sheegay in labada wadan u dhaxay markii dambe isaga toos igu soo bareeray oo igu yiri buuri aynu isweydiino sidaan u kala badbaadi lahayn maadaama adiga lagu yar hadda gacanta lagu soo galiyay annagana aan dagaal kula jirno wadanka hubka United ku siiyay ayuu sheegay wuxuu kaloo sheegay in ay jireen markii u horeysay kulamo la codsaday inay ka dhacaan magaalada galbeedka ku taala ee dalka Ukraine Lviv ee dhinaca galbeed ee wadanka Belarus oo dhinaca xuduudda ku dhow dabcan ku taala gaar ahaan dhinaca Poland waxa uu sheegay hadaba sheekadu markii halkaas mareysay wuxuu yiri ninkan maaha ayuu nin xora sida daradeed qaar ka mid ah taliyaashiisa ayaa wax la shaqeeyay sirdoonka Mareykanka sheekadii sirdoonka Mareykanka ayaa ogaaday buuri kadib Mareykanka ayaa amar siiyay oo yiri waryaar khadka ka bax iyo sheekada saas wadalka u dhigay waa qiso diblomaasiyadeed oo uga sheekeynayo sida maaratay aniga kulleed waxaan dhihi karaa dadka Soomaaliya waxa aad u og yihiin sheekada caanka ah ee Dani madaxweyne farmaajo ay soo wacay saas igu taasna lama dhaho moogti hadal diblomaasiyadeed ma hadal oday tilmaana ma aha moogti runtii kalaftiisuna saas oo kale ayuu sameeyay sida muuqata run iyo been miyaa labada sheekaba taas ilaahay baa ku caalim waxa uu yiri qadku wuxuu ahaa ayuu yiri in laga wada hadlo arrimahaas laakiin hogaamiyaha mucaaradka oo iyadoo reer galbeedka cilaaqaadka la leh oo leedo Sifalana Tikhanovskaya oo iyadoo Belarus wadanka uu ka buriyo wadanka ka ceyriyay ayaa waxay sheegtay ninkan inuu yahay nin waalan oo haysta qaar ka mid ah xanuunada dhimirka sida daradeedna uu yahay macangig dabadeedna intuu habeen xanaaqo hubka nuclearka gacanta loo geliyo ku buufi karo wadamada reer galbeedka oo dhan sida daradeed gaar ahaan wadamada waxay tir reer Yurub hadda xaaladinu waa konton baytri xaaladina dhinaca amnigu waa konton inay ficnaa karto inay konton inay xumaa karto ay uga digtay ayaduna warkaas Sweden waxa ay mar kale fooda isgeliyeen dawladda dalka Turkiga taliyaha asha iyo madaxda sarsare ee Sweden ayaa raadinaya cilaaqaad in ay soo ceshadaan hase yeeshee madaxweyne Erdogan ayaa ka gaban in kubaddu aysan Olimpa magaalada Ankara ay taalo magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden sida daradeedna Sweden iyada laga rabo in ay ka fakaraan sidii ay uga hortagi lahaayeen argagixisada iyo sidii u fuli lahaayeen wixii lagu heshiiyay waxa uu yiri heshiis ayaa jiray memorandums ayaa jiray trilateral saddex geesood ayaa jiray wuxuuna sheegay gabi ahaanba in ay ahaayeen kuwo aad u waaweyn oo aan ahayn kuwo dabcan laga bixi karo